mar alle marka badaha dhexdeeda lagu qabto ee hirarkiiyo dabayluhu iyo baddu ay duufaan ku helo tawxiidka ilaahay bay u baraxtirayaan baryada ilaahay bay khaalis uga dhigayaan bariga markay yimaadaan ee cagaha dhulka saaraana waaba iyagoo cibaadada ilaahay cid kale la wadaarjinaya baa ilaahay yidhi waxaan xasuustaa maalin sanadkii hore aan u malaynaya bishii November bisheedii diyaarad baan ka raacnay Djibouti waxaan u soconaa Addis Ababa Ethiopia Airlines maalmaha diyaaradda raaci doono muddo 5 bilood laga joogana diyaarad baa ku dhacday Ethiopia dhexdeeda oo 150 qof ay ku qurbeeshay waad maqashay ma malayn ya 120 dar dhabayna la fadhiisatay dad baa naga raacay dadna hadana safarkii baa sii wadanay ilaa Addis markay u dhawaato waxay gashay roob iyo buuro waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu way garirtay markaa kursigan aan u fadhiyaa kitaab quraan aan iska akhrisanaya halkaana culimo kala fadhida halkana nin daadiisa ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaal ah oo xabashi ay fadhiya diyaaradii way garirtay markaa quraan kan iska akhrisanaya lugtaydii buu qabsaday naxdin daraadeed markaas aan ku yiri la ilaaha illa allah markaas uu yiri igu cali way garirtay hadana diyaaradii oo naxay aniga hadana ay qabsaday markaa baan la ilaaha illa allah markaas la ilaaha illa allah subhanallah dhageysta musa ajiib wallahi waa qisa ajiiba markaasaan ayaan ku iri in xal cabsoon baan ku iri odayada ma cabsoon odayada marka aniga ila socday niman culimo Djibouti baa hayano ijtimaac ka dhacay Addis Ababa ayaan u soconaa way iska hurdaniyo marka kursiga dusheeda iska khoorinayaan markaasaan ku iri kuwa hamay cabsoonayaan adoo maxal cabsoon wuxuu iri kuwaasi way shaqaysteen anu ma shaqaysan buu yiri kuwaasi waa muslimiin way shaqaysteen buu yiri ma cabsoonayaan anu laakiin ma shaqaysan buu yiri adduunkan aan khamri ku cabaa fisq iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyaan ku jira waxa marka wuxuu yiri anu islaam baan u baahanahay buu islaam inaan islaaman doonayaa buu yiri hadalkii hadana Saudi garirta diyaaradii markaas hadana lugtii qabsaday war isiida la ilaaha illa allah markaas iga dabeeyo la ilaaha illa allah diyaaradii markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay waan ka faa'iideystay waxaan ka yiri waa inaad islaamta wuxuu yiri islaamnimadu bariyahan oo dhan maskaxdayda ku dhex guuraysaa buu yiri waanan arkay buu dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin waan arkay buu yiri rag badan oo ganacsato muslimiinana saaxiib aan lahayn buu yiri marka isoo duceeyay buu culamadan ay ugu sheekay isoo duceeyaan anna ballan waan islaamaya buu yiri hadalku halka noo maray marka ayaa la soo dhaadhaca waxaan xasuustay marka aayadaas وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم حالة هذاك مركي كنت مع دبا إلهي كوا قال هذا حاجة أصور ده حاجة إلهي فرعون مركي لقب تبع آيات لا تصبع نبي موسى صور تجربة لي وقال يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل سقال آيات با إلهي فرعون وتصي آياتك وحا كمدها الضوفان با لتصي ديك با لتصي أيح با لتصي إنجر با لقصة لدي آيات كستمركي لتصوى فرعون وحق موسى أي دقيه مركو كسوا ويبع وعير هذا النبي موسى إنه وشيقع حدي لنا قد قاد عقوبة ناس وحن كبال قادنا إلهينا الرومين موسى أن راعي ريب بني إسرائيل عذاب كان كدين فرعون موسى الله يمدان فرعون ساس وليه مرقاس النبي موسى إلهي ببريا بلا يدي با فرعون لقى قاد عقوبة دي مرة اللي مرقع عقوبة لقى قاد فرعون وحو ليه هي سحر بوها وحو نبو قبته لا إله إلا الله ما انت فرعون لقبت إلهي بكو أردايي هنا كان كورما ما انت لأن قبت حقان وردنا زمن كان أوار بعد عضي إلهي نوما كان أمين هذا حقان لو غيلا دان درتا يا ده لو سو قرمدا هيدا سما فلكا
hay-adda ka hortagga masiibooyinka dabiiciga, hay-adda cilmi baadhista saadaasha hawada, idaacaddu soo fadhiisan faaliye jaamiciya oo dibloom sita, waxaa lagu leeyahay ninkani waa master buu sitaa, haye waxa uu ka faalloodaa hawada iyo cimilada ayuu wax ka barto wax ka sheegaa, markaa buu odhanayaa isniinta soo socda roob baa da'aya alaabta urursada. laa ilaaha ila allah, quluu laa ilaaha ila allah. hay-adda caafimaadka adduunka waxay ku odhan xanuun caalami adduunka yimidee sanka iyo gacmaha xidha. man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu mima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed. faaliye iyo fooxle buu nebigu yidhi labadaa ninka la fadhiista ee waxay sheegayaan wax ka rumaysta buu nebigu yidhi shareecaddii aniga igu soo degtay ninkaas waa ka galo buu rasuulku yidhi. faaliyihii aad taqaanay mahayna faaliye casriya soo baxay. iimaankaaga ilaalsho, laa ilaaha ila allah ilaalsho. hayb waxa iman doonee soo socda ilaahay maayna cid kale ma taqaano. ina allaha cindahu cilmu الsaaca wayunazilu اlghayth wayaclamu ma fi اlarxaam wma tadri nafsu maada taksibu gadan wma tadri nafsu biأyi ardi tamuut ina allaha caliimu khabiir. saacadda qiyaamadu markay dhacayso ilaahay mooyaane cid kale ma taqaano. roobku markuu da'ayana alla mooye cid kale ma taqaano. caloosha waxaa ku jira ma dakar baa mise waa untaa, ma lab baa mise waa dhidig, ilaahay mooyaane cid kale ma taqaano. adu halka aad baritoola waxaad kasbani doontidna ma ogid, halkaad ku dhimanaysana ma taqaanin. dad baa baryahan dhakhtarada waa aalaad casriya la helay moogtahay oo ay leeyihiin waana wax jira aqoon la gaadhay way dhici kartaa ma inkirayno, laakiin waxna waa run bay noqotaa marmarna been bay noqotaa. islaantii 7 bilood la saaraya ekooga iskaanka la saaraya computerka waxa la leeyahay gabadh islaanta gabadhu wiil bay ku sidaa. midda lagu yidhi 7 bilood markay gashaan loo saaray wiil bay sidaa, haddana 8 bilood markay gashaan loo saaray wiil bay sidaa, 9 bilood markay madaxa la gashaan loo saaray wiil bay sidaa. maalintay dhashaan laga yidhi gabadh bay ku dhashay. uu dagaalamayba wuxuu yidhi islaantaydu wiil bay sidee halkaas soo dhiga waad ii badisheynaya. waa waxba laguma bedelin yaa miskiin. aaladan bini aadam baa sameeyey 100% run ma sheegayso. aaladan bini aadam baa sameeyey 100% run ma sheegayso. horumar baa la gaadhay maaha. masaa'ibtii bini aadamka masaa'ibtii u qarsoonayd baa bannaanka maanta loo soo dhigay caalamka. isagoo qofkii oo nool ayuu nolosha ku dhintay qofku. markii la yidhi dhiikar baad leedahay oo sokor baad leedahay oo macaan baad leedahay oo subag baad leedahay oo kansar baad leedahay uuba dhintayba. isagoo nool buu qofku dhintayba. berigii horena hee aalaadkan maanta wax iktishaafaya ee teknolojiga aan ku sheegayno ma jirayn. qofku uu iska noolaan jiray, uu iska bukoon jiray, uu iska sakaraadi jiray, uu iska dhimani jiray. ma tahay mise ma walaa macaan buu ka baqaa walaa subag buu ka baqaa. mid baa la sheegay qurbaha la geeyo wadannada Mareykanka marka lagu tuuro Soomaalida markaaba dhakhtar baa la geeyaa waa la check-gareeyaa, check-up baa lagu sameeyaa. markaasaa la yidhi oo dhakhtarkii uu yaabay cholesterol baad leedahay. markaas war muxuu yidhi ii sheega. markaasaa la subag baad leedahay subag badan. markaasuu yidhi alxamdulillah marba haddaad dufan leehay buu yidhi. waar waddan waxaan haysanay dadku tabiic cala tabiica ku nool yihiin oo iska noolaanayaan oo hadday bukoodaana sadaqada bixinayaan oo ilaahay ay baryayaan oo quraanka isku daweynayaan. nin dhan baad arkaysaa masjidka sare kaco ku odhanaya waar maalmahan waa yar xanuunsanaya faatixada halla ii maro ilaahay ducada muslimiinta buu aqbalaa. horumar baa la gaadhay. horumar lama gaadhine masaa'ibtii jirtay qarsooneyd baa bannaanka lagugu soo saaray maanta. dadka iyakoo nool ayay qalbigiiyo ruuxaaniyan iyo moraaliyan wayba dhinsan yihiin dadku maanta. fanarjac ila allah, ilaahay baan u noqonaynaa. koonkan ilaahay baa ka taliya. waxa soo socda ilaahay maana cid kale ma ogo. wixii ilaahay qadaray maayna adduunka wax kale kama dhacaya. ilaahay ku xidhnow yaan xadhiga ilaahay lagaa jarin. sheekha yidhi gaaladu barigoor waxay nagu soo qaadeen ghazwa alfikr, maskaxday nagaga soo duuleen. hadda baryahan waxaa bilaabmay ghazwa alcaqiida, in qofka caqiidadiisa iyo iimaankiisa lagala dagaalamo. aaminaadii ilaahay aad ku kalsoonayd eed qur-aanka aaminsanayd eed ilaahay tabaaraka wa tacaala nidaamkiisa aad ku xidhnayd ayaa la rabaa in lagaa gooyo.
deedna lagugu xidho nidaamka iyaku ay samaysteen marka waa inaad tiraahdaa yaa sheekh annaku muslimiin baan nahay isku aragti ma nahay isku aragti ma nihin insha allah dhahada qulu insha allah dhahada xaajadeena baahideena yaanu sheeganaynaa allah ubadkeena ilaahay baan baraynaa ubadkeena quraankaan baraynaa haweenkeena asturka ayaan baraynaa dadka muslimiintu waa walaalo waxa walaalo ka dhigtay waa laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullah wanaagaan ummadda ugu yeedhana wanaaga waa maxay wixii shariicadda islaamku ay ku fartay waa wax adiga maslaxad ku ah runta sheeg bay ku leedahay maslaxaddu runta dadkoo dhan baa kugu jeclaan beentana dadkoo dhan baa kugu neceb ballanta buuxi bay shariicadda islaamku ku leedahay ballantana ha buuxin bay ballantana ha jabin oo ballan baajiyaha noqon bay ku leedahay qofka ballanta buuxiya dadkoo dhan baa jecel qofka ballan baajiyahana dadkoo dhan baa neceb shariicadda islaamku waxay ku leedahay ammaano qof la noqo haddaad ammaano xaafid noqoto dadkoo dhan baa ku jeclaani haddaad laakiin aad noqoto khaayin hooyadaa iyo aabbahaa wase kaa ilaalinayaan wanaagay shariicadda islaamku kugu yeedhayso waa waxa dadnimada kaaga dhigaya dadka kugu dhex daraya qiyam akhlaaqda wanaagsan ayaa qof kaa dhigaysee qabiil iyo aqoontan maadiga iyo dhaqaalaha aad haysatid kaa dhigi maayo dad ugu diinta islaamka wanaagay kugu yeedhaysa ayaa dad ku noqonaysa fanatacalam diinteenaan baranaynaa diinteenna ubadkeenna baraynaa raggeenna waaweyne diinta ilaah baan ka shaqaynaynaa war maxaa ka shaqaynaa diintaan ka shaqaynaynaa ayaa u daaray diinteenu ka shaqeeyo wallaahi diintu shaqay u baahan tahay maanta shaqo habeen saddexaad baan hawdkaan u baxnay meel gaashaamo la yidhaha baan tagnay 4 cishaan ku maqnay duhur magaalaan marnay casar tuulaan marnay tuulaan maalin baad duhur la tukan dadka aan la hadlaynay salaada inta imanaysa iyo inta maqaaxiyaha fadhida jaadka cunaysa inta maqaaxiyaha fadhida jaadka cunaysa salaada aan u soo kacayn 80% baa ku qiyaasay salaadii عمود الإسلام ودبدحاتي دين الإسلام كان ما أنت مجتمعنا كل حدا يعني وما دمرك فرد وما بهنا ما أنت صعد بأوبه أنت حيوبه أنت صعد سيدات كبت بعدين صادق يوم مدة كبت بعدين لا يدود ذلك الدعوة دويا ودل يردنا وضيدنا عامدنا علماءنا وأنا نقعمن تونس 5 سنة دين تدلك إنه هو ذكرنا يا ودي أردين